maya ma ku dhihi kari amana kaa tagi kari meel kastaan kula aadaa xitaa musqusha maya ma ku dhihi kari mana kaa tagi kari meel kastaan kula aadaa kusoo dhawaada dukaanka Kalabag oo lagaaga furay xaafadda Edmonton asbuucan dukaankan furitaankiisa awgeed sida aad u jeedaan wuxuu qabaa seel weyn oo loogu talagalay dadka inay ka faa'iideystaan soo dhawaada oo soo raaca dukaankan Kalabag sida aad u jeedaan waxa laga furay xaafadda Edmonton wadada 4 Street 68 ilaa 70 lambarka ah wuxuu hayaa alaab aad u casri ah oo hore aadnan ugu arag dukaamada kale dukaankan wuxuu iibinayaa dhammaan wixii accessories ama ubaxyada sida aad arkaysaan oo dhan halkan ayaad ka iibsan kartaa wuxuu uga duwan yahay dukaamadii kale qiimihiisa oo aad u macquul ah waana markii ugu horeysay oo Ingiriiska laga furay wadanka Turkiga ayuu hore ugu ooli jiray kuna lahaa 200 oo dukaan waxaana la furay markii ugu horeysay 1935 alaabta dukaankan oo ah alaab aad iyo aad u qiimo badan isla markaana Turkidu ay aad u daneynayaan customerka Soomaalida ah ayay waxay soo bandhigeen alaaban hore loo arag aadna u raqiisan waxaan idinku soo dhaweynayaa dukaanka Kalabag oo laga furay Edmonton wadada High Road-ka ah ayuu saaran yahay masaajidka ayuu u dhow yahay ka faa'iideysan labada asbuuc oo ugu horeysay ee furitaankiisa si markaasi aad u hesho alaab qiimihiisa la soo jebiyo